dhalinyarta suuqa shaqada soo galaysa marka caqabadaha in ay dhalinyarta shaqada already ku jirta inay la wadaagaan saaxiibadoodii jaamacadaha hadda dhigta caqabadihii qabsaday waa muhiim. That's why aniga aan hadda idinla wadaagaya barnaamijkan oo kale aan kala hadlayo caqabadaha wax badan baa kamid ah. Waxa laga yaabaa qofka inta uu boss hoose u ka shaqeynayo ilaa officer wixii hoose u ka shaqeynayo inaan laga qayb galin projectigan qaabka designkiisa iyo meeshii lagu sameeyay iyo hadafka laga leeyahay iyo outcome-kiisa iyo waxyaalaha la cabirayo projectigan iyo meesha loo socdo aakhirka impactiga mashruuca kan inuusan qofkan uusan fahansanin just activity lines ka u fiirsado iyo budget line-ka meesha ugu jirta saa uu ku shaqeeyo baa laga yaabaa marka qaarkood mushaar fiican inta uu ku qaato 3 4 5 taas marka waxay keentay qaar badan dhalinyarada halka inay stuck ku noqdaan balse qofka smartiga waxa la rabaa inuu ka fakaro maxaa ka baran kartaa project kasta isaga laftigiisa hadaad dib u fiirisid jaamacad buu ku noqon karaa maxaa yeelay project aad weyn marka qaar waxa ka shaqeynaysa 2 milyan 3 milyan 4 milyan 5 milyan 10 milyan ama 30 milyan baa hadaad projectigaas akhrisid theory of change-giisa wax loo yaqaan oo muxuu rabaa projectka inuu bedelo dhaqan noocyo ayuu rabaa inuu bedelo muxuu u baahan yahay projectkan in uu gaaro muxuu u baahan yahay projectka inuu dad noocyo ayuu rabaa inuu wax qabto beneficiaries-kiisa waa noocyo waqti intee ayaa la rabaa inuu barnaamijkan oo dadkan wax kaga bedelo projectkan ma intervention ba ma howlqabad ba projectkan just ma support kaliya dad la caawinayo alaab kaliya la siinaya ba muxuu yahay projectka hadafka ugu dambeeya oo projectkan laga leeyahay marka projectigu marka wuxuu soo saar waxyaalaha kamid ah waa data-yinka oo runtii wax aad u muhiimsan haddii aadan garanayn sida aad caqabadaha dhalinyarta qaarkood haysta waa maxay waxa laga yaabaa qof inuu joogo meeshii data ku shaqeeya projectigan data-yinka uu soo saarayo taasna maxaa la lahaa qofkii dhalinyarta ay ku sababto just isagoo inuu ama officer yahay ama manager uu iska yahay balse xogtii projectigiisa ay qolo kale u maamulayso ay u soo dirto just isna report-ka soo fiirsanayo mushaarkiisa fiirsanayo sida ay ku socoto taas marka weeyaa mid runtii aad khatar u ah maxaa yeelay brito haddii aad shaqadan ka tagtid waxaa kugu imaanaya in aad jahwareer kugu dhaco dee maamul baad ka shaqeynaysay wax maadan design garaynin wax maadan contribute garaynin tira badatay wax maadan analyze garaynin taas marka weeyaan tan u baahan adduunkan runtii uu socdo aan rabo inaan xoog saaro fiidiyaashii qaar badan aan rabo inaan kaga hadlo xirfadeydana inaan kaga hadlo waa data waa research waa cilmi baaris waa xogta aad mashruucan ka shaqeynayso uu soo saarayo runtii haddii aadan aqoon sida aad u maamulan lahayd ama aadan aqoon sidii aad maradhal uga samayn lahayd ama aad qof kale marti aad uga tahay horumar ma sameynaysa horumar ma adag tahay sida u gaartid okay dad badan baa waxay ku shaqeystaan consultant aniga ku shaqeeyo consultant waa maxay marka videoga waxaan kaga hadlay nidaamka consultantiga ayaan kaga hadlay waxa weeyaan hay'adda marka ay rabto mashruuc inay fuliso waxay u baahan tahay inay ogaato xaaladda markii hore xagee bay maraysay si uu ogaato xaaladda markii hore xagee bay maraysay waxay u baahan tahay in ay ama iyadu internally ay cilmi baaris samayso ama survey bay dadka qaarkood u yaqaanaan ay samayso baseline ahaan oo ah warbixin hordhac ah oo ka turjumaysa war dadkan aan warramno inaan u qabanno xaaladooda xagee bay maraysaa sidee tahay saas darteed taasna waxay ku waxa ay aakhirka keenaysaa in ay ogaato hay'addu meeshii wax ka qaban lahayd iyo dadka sida wax ugu qaban lahayd inay ogaato ay markaas ay ka saacidaysaa marar badan waxa laga yaabaa marka xogtaas in dad ajnabi ah just xogta ku shaqeeya kaliya wadankeena ay ku shaqeeyaan maxaa yeelay xogta ay hay'aduhu soo saaraan qaar badan way ka duwan tahay xogta academiga ama book thesis jaamacadda ku soo qortay way ka duwan tahay saas darteed haddii aadan marka u diyaarsanayn in aad xogta noocaas aad heli kartid oo aad soo aroorsan kartid oo aad analyze gareyn kartid oo aad report ka qori kartid oo aad fahmi kartid haddii aadan u diyaarsanayn caqabad weyn ba ku qabanaysa maalin kastana qof ayaa marti u noqonaysa waxaana laga yaabaa hay'adda inaad 30 sano oo soo socota haddii fursad ku sii heshid ba macna inaad iska sii joogtid ama berito tan ka tagtid mid kale inaad heshid ay aad kugu adkaato marka marar badan ani markaan runtii hay'adaha ku biiriyay techniques badan qaarkood ma aqoon laakiin danta ayaa kugu kalifaysa inaad baratid waxyaalaha qaarkood xogta oo kale tadeer jaamacadaha wax laga yaabaa in ardada baraan in xogta lagu soo aruuriyo marka buugga ay qorayaan qalin iyo warqad la qaato
oo kadibna maaragtay ardaygii uu qalin qaato uu warqado dhaadheer uu soo buuxiyo ardayga ayaa laga yaabaa taas marka waxa ay dhibaato keenaysaa marka lagu diro xog kumanaan kun oo qof ah 50,000 oo guri 20,000 oo guri 30,000 oo guri xogtood warqad iyo qalin ma qaadan kartid maxaa la sameeyaa waxa la sameeyaa marar badan marka in xogti lagu soo aruuriyo mobile data collection adduunka teknolojiyadda haddii aad fakhri ka tahay teknolojiyadda isticmaalkeeda weliga fakhri ayaa ahaan kartaa maxaa yeelay maanta dunida waxay u socotaa dhinaca teknolojiyadda ayay u socotaa ama ahaw qof macallin ahaw ama arday ahaw ama ganacsade ahaw ama sheekh ahaw ama haddii aadan teknolojiyadda la socon karin dhibaato weyn waxa ku qabsanaysaa in aad weliga marti uga noqotid qof kale oo teknolojiyadda yaqaan marka halka waxaan dib ugu laabanayaa haddana nidaamkeena waxbarashada wax badan muhiim ah marka inaan soo dirin jaamacadaheena teknolojiyadda heer xagee ayay ka joogaan waxa laga yaabaa inaan soo saarno arday computer science barata ama arday IT barata ama arday teknolojiyadda qayb kamid ah wax ka barata ama engineering noocyadiisa kala duwan arday barata waxa laga yaabaa ardaygaas in uusan teknolojiyad badan uusan exposure uusan u helin ama uusan markuu shaqada joogayba uusan on job training fiican uusan helin taas marka waxay saacidaysaa in uu qof kale oo teknolojiyadda yaqaan in adiga marti u ahaatid marka taan ka hadlayo marka waxa weeyaan in teknolojiyadda dhalinyartu ay xoog saarto sida saan hadda ka hadlay waxaan ka hadlay nidaamka xogta lagu soo ururiyo xogta waxa lagu soo ururiyaa aan muddo aan shaqeynayay aan ku bartay in xogta lagu soo ururiyo hadda example mobile data mobileka xogta lagu soo ururin karo dhowr software ayaa la isticmaalaa software la dhaho ODK iyo software la dhaho Kobo iyo ODK labadaba waa laba software oo free ah jira kulligood waa wada platform lagu talagalay xogta in lagu soo ururiyo qaar lacag iyo qaar free inta way jiraan marka waxay ku siinayaan furas ah labada siyaabood bay leeyihiin haddii aad inta marka hore Novaska aad tahay cusub tahay waxa laga yaabaa inaad serverka dhexdiisa aad ku dhex dhisatid formkii xogta lagu soo aruurin lahaa dad baa Google documents isticmaala Google Forms isticmaala xogta ku aruuriya laakiin is a poor skill fiican ma qaar baa marka waxa ku dhex dhistaan platformka korkiisa serverka korkiisa sida ODK-ga ama Survey CTO-ga ama koobaha korkiisa ku dhex dhista maxaa la formkii wax badan meelo badan ayuu ka xirayaa wax badan efficiency maaha laakiin hadaa rabtid more expert in si aad form waxa jira XLS form la dhaho oo aad uga hadlaya xogta coding kala qoraysid oo aad su'aasha single choice ka su'aasha textiga su'aasha texting macnaha su'aal qoraal ayaan ka wadaa su'aasha numberka integer bay isticmaalaan su'aasha multiple ka su'aasha date-ka maadaarabtina date-ka wax ku weydiisay time-kii sawirkii geotag ama GPS-kii ina qaadid marka qofka meesha xogta ka soo aruurinaya wuxuu dhan xog ku qaadi kartid weeyaan kadibna ageenaysa serverkii ageenaysid kadibna waxa laga yaabaa I remember waxaan xasuustaa anigoo Garowe jooga ama Boosaaso jooga ama Muqdisho jooga in teamka ila shaqeynaya ay joogaan xogta markan u tababar kadib ay joogaan Baydhabo oo kale ama Kismaayo oo kale ay joogaan ama Cadaado oo kale ay joogaan ama Hargeysa joogaan inta waa ka shaqeeyay alxamdulillah in ay xogtii ay soo diraan markii ay soo diraan serverka xogtii ku soo dhacaysa serverka xogtii markii ku soo dhacdo aniga serverkii passwordkiisa iyo userkiisa baan haystaa iyagana serverka linkigiisa ayaan u gelinayaa mobileka kadibna waxaan sameynayaa xogtii baan la soo degayaa waan analyze gareynayaa report baan ka qorayaa nidaamkaas ayaan hadda xogtii ku gudbinayaa taas marka haddii aadan intaas wax u baahan tahay nidaam teknolojiyad nasiib xumo nidaamkeeni waxbarasho maba lagu barto mana taal macallimiinteena qaar badan ayaanba u diyaarsanayn ama aan aqoon ama qaar badan dhalinyarta qaarkood waxa laga yaabaa inay dhahaan anigu Uganda wax ku soo baranaya ama Hindi ama Pakistan ama bahalkii it's not wadanka aad joogtid muhiim macna badan ma sameeyo waxa macnaha sameeynaya waa teknolojiyadda institutionka aad dhiganaysid see ay u isticmaalaa taas ayaa macna badan sameynaysa balse haddaad iska qanacsan tahay inaad theory iska lagu akhriyo waa laga yaabaa inaad muddo badan ay kugu qaadato inaad waxaas gadaal ka fahantid marka videogu waa dheereeyay waxaan rabaa marka inaad ku soo laabto xogta marka haddii aadan teknolojiyadda aadan isticmaali karin xogta si kasta aadan u kala siyaabo kala duwan aadan u manipulate gareyn karin u iska isticmaali karin you will always be poor
fakhri ayaa ka ahaanaysaa in aad xog rasmi aad heshid xogaha marka researchka qaarkiin dhalinyarta qaar way yaqaanaan ama theoretical ama knowledge ahaan ay u barteen waa qaarna waa quantitative data ama qaarna waa qualitative data xog wareysi aad qofkii qoraal dheer su'aalo open furan aad la yeelanaysid wareysi noocaas iyo xog just close ended oo xiran oo aad meesha ma aadaa intii qof baa tihiin numbers soo saaraysa weeyaan soo xogta marka qaarkood numbers soo saarayso kaleeto ama academic ka shaqeeya ama hay'adaha ka shaqeeya isku mid waxa aad u isticmaalaysaa marar badan programyo ayaa jira la isticmaal sida program waxa jira R program coding isna aad qoraysid sidoo kaleeto program waxa jira Stata la dhaho oo isagana statistical application labada program waxaan dhigi karaa labada program oo kale waa most powerful applications oo data analysis ka aad ugu fiican dad ba SPSS isticmaala although SPSS is not much efficiency dad ba isticmaala Python oo qayb wuxuu leeyahay component wuxuu leeyahay data analysis inkastoo Python ku yahay program aad u ballaaran oo lagu talagalay data science ama sidoo kale web application iyo software development iyo waxyaalahaas loogu talagalay marka topic badan ayaan ka hadlayaa barnaamijyo badan ayaan ka hadlayaa marka aan soo laabto hadaan xogta marka software-da ayaa lagu isticmaalaa software-daas marka jaamacadaheena dib haddana waa inaan weydiiyo su'aashaas how far ay ardadeena ama macallimiinteenu ay ku tababaran yihiin in ay xog ama product report ready product soo saari karaan iyaga oo nidaamkan aan ku sheegay teknolojiyada isticmaalay xogtii mobile ku soo qaatay applicationada ku analyze gareystay reportkii qoray projectigi dib u fiiriyay mail plankii project plankii indicatorskii log frameka mashruuca kan waxa soo dhan aad kasoo diraandirin kartid ilaa aakhirka aad timaadid in aad reportkii qoraysid ama xitaa language ahaan how far ay dhalinyarteen u diyaarsan yihiin inta ay jaamacadda dhiganayaan perhaps seebay xitaa jaamacad macallimiinteena ay u diyaarsan yihiin seebay maamulkeena aware ugu yihiin in waxa soo dhan la iska rabo marka arrimahaas oo marka aan ka hadlayo runtii waxa u baahanahay inaan dib u fiir nidaamkan waxbarasho wax badan aan ka saxnaa ayaa u baahanahay waxa marka jeclahay inaan barnaamijyadan mid ayaga hadli doonaa for example markaan ka hadlayo ARC application ka very powerful application runtii aad ku sameyn kartid coding way qoraysaa laftigiisa aad ku sameyn kartid ilaa dashboard aad create gareyn kartid packages badan buu leeyahay hadda waxa jira hadda aad u saxaysanaysa program hadda waxa jira data science oo runtii aad adduunka teknolojiyada oo aad u sii aaday oo datooyinka adduunka data aad bay muhiim u tahay massive data ayay maanta adduunka la soo saaraa oo data videogan aan kula hadlayo data ayaa ku jirta datadan someone can retrieve it qof ayaa ka soo saari kara kelmadahan u bedeli kara maxaa la dhahaa as a word iskadib analyze gareyn kara ama Twitterka ama Facebook isticmaalaysid waxa jira waxa loo sentiment analysis text mining marka all these are what techniques aad ku sameyn kartid platformskaas kale qaar waa qualitative oo iyaga qaar manual bay dadku ay maanta adduunka la soo saaraa oo data videogan aan kula hadlayo data ayaa ku jirta datadan someone can retrieve it qof ayaa ka soo saari kara kelmadahan u bedeli kara maxaa la dhahaa as a word iskadib analyze gareyn kara ama Twitterka ama Facebook isticmaalaysid waxa jira waxa loo sentiment analysis text mining marka all these are what techniques aad ku sameyn kartid platformskaas kala duwan aan ku sheegay marka waxaan ka hadlayaa marka wax weeyaan nidaamkeena waxbarasho teknolojiyada how far ayuu la jaan qaadi karaa su'aashaas waa question mark oo baahanahay kulligeen inaan ku salayno nidaamkeena waxbarasho inaan update garayno haddii marka nidaamkeena waxbarasho uusan update ahayn dadka aan soo saarayno update ma noqonayaan outdated bay ahaanayaan teknolojiyada lama jaan qaadi karaan weligoodna meel kasta ay tagaan ardadeena dhalinyarteena waxa ay hoos joogayaal u noqonayaan dad ama ajnabi soo bartay teknolojiyada wax ku soo bartay ayaa ajnabi u ahaanayna